بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رئيس وزراء جمهورية فدرالك الصومالية مدن محمد حسين روبلة ayaa maanta kulan la yeeshay golaha midowga musharaxiinta ra'iisul wasaaraha iyo golaha midowga musharaxiinta ayaa ka wada hadlay sidii loo dardargelin lahaa arrimaha doorashooyinka dalka isla markaana doorashadu ay u noqon lahayd mid cadaalad ah oo hufan oo ku dhacda waqtigii loogu talagalay golaha midowga musharaxiinta ayaa ra'iisul wasaaraha la wadaagay talooyin la xiriiray sidii loo turxaan bixi lahaa qaar ka mid ah qodobada habraaci 24 bisha August sanadkan golaha wada tashiga qaranku ay gaareen ee la xiriiray arrimaha doorashooyinka iyo qodobada u baahan in kala cadeyn iyo tafsiir dheeri ah laga bixiyo ra'iisul wasaaraha iyo musharaxiinta ayaa isku raacay in si dhow looga wada shaqeeyo sidii doorashadu ay u noqon lahayd mid si degdeg ah u dhacda oo hufan isla markaana la xalliyo dhammaan arrimaha u baahan in muxuu ahaa la kala cadeeyo ee ku xusan habraacyadii iyo heshiisyadii doorashooyinka la gaaray si dhowna looga wada shaqeeyo dhammaan muxuu ahaa in doorashadu waqtiga loogu talagalay ay ku dhacdo ra'iisul wasaaruhu wuxuu ugu dambeyntii uga mahad celiyay musharaxiinta talooyinkooda iyo sida markasta ay ugu baraarugsan yihiin arrimaha doorashooyinka wuxuuna u ballan qaaday isaga iyo golaha uu hadda gudoomiyo wada tashiga qaranka in ay ka go'an tahay in doorashada wajigeeda labaad uu si degdeg ah ku bilowdo doorashadu inay noqoto mid hufan markasta in loo dhaga nuglaado oo la dhageysto tabashooyinka iyo talooyinka ka imaanaya guud ahaan dadka Soomaaliyeed isla markaana u ballan qaaday in markasta uu soo dhaweynayo talooyinka iyo aragtiyada ka imaanaya musharaxiinta iyo dadka kale ee Soomaaliyeed guud ahaantood